محمود عيدي درر وزير دولها أهنا كسمها وزير كوزارة وحبرشة إيا تعليم السلام أحمد إبراهيم عواية دوريها أساسياشة جامعة البوصاصة دكتور محمد علي فارح دكتور شوال خليف عبدي مسؤولك حريريها جامعة تشيكشيغا جامعة أفريقيا إنجنير محمد قدومي كحجان كجامعة السمت بناء أكاديميكا حبناها برلمانكا مسؤولين الدولة ماموركا معلمين أرضية جامعة البوصاصة أرضية قرية بين إسرائيل وقوسسكورا مرتي شرفت كلا إذا كأمانكا إذا كبامبيجا إذا كترافيكا صحافة لما أنت محمد سلام يا صلاة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته سلام كتب مضينا يا مروين أنا أقول لي مقعد جامعة البوصاصة waxaan marka koowaad halkan idinku soo dhaweynayna xafladda tan quruxda badan oo ay ku qalin jabinayaan ama ku qalin bedelanayaan in dufcadii toddobaad ee ka qalin jabisay jaamacadda Boosaaso Garowe dhammaan waxaan halkan u joognaa inaan qirno shaqadii adkeyd ay soo qabteen muddadii waxbarashadooda soo qabateen waxaan qaraynaa muddadii waxbarashadiina soo qabateen shaqadii adkayda soo qabateen habeenada soo dhafadheen intii aad soo jeedeen dadaalka soo bixiseen inaad maanta ku mutaysataan inaad heerkaas soo gaadhaan idinku yimaadaan intaana mas-uuliyiin iyo intaana waalidiin iyo intaana ahel iyo intaana asxaab say idinku hambalyeeyaan guul ka mida guulihii waaweynaa ee kusoo talagasheen inaad gaadhaan muddadana usoo dadaalayseen dhammaanteen community-ga jaamacadda Boosaaso waxaanu leenahay hambaliyo waxaan idin rajaynaynaa xayaa saciida oo tayiba iyo inaad maaragtaa muxuu ahaa noloshiina hore ugu sii socotaan mudanayaal iyo marwooyin dhammaan ardaydan qalin jabinaysa ee caawa halkan joogta runtii waxay soo bixiyeen juhdi dheeri ah waxay soo dhamaystirtaan dhammaan wax kasta iyo mas'uuliyad kasta oo saarayd waqtigii waxbarashadooda mid walbana caawa wuxuu xafladda tan ka soo qayb galay isaga oo u diyaarsan soona dhamaystay kuna hubaysan sidii uu bulshadiisa u anfici lahaa waxaan hubnaa inay ku hubaysan yihiin dulqaad aqoon hal-abuurnimo u fakerid si madax bannaan iyo dhegaysiga aragtida ka soo horjeeda waxaan rajaynaynaa in ay markay ku biiraan saaxada shaqada iyo u adeegida bulshadooda in ay noqon doonaan kuwii wax ka bedela wax la taaban karana gaara caawa halkan waxaa ku qalin jabinaya arday tiradoodu gaarayso 375 arday oo ka kala qalin jabinaya qaybo kala duwan oo muhiim bulshada u ah jaamacadda runtii markii la aasaasay qaybahaas loo eegayay baahida bulshada iyo qof kasta oo shahaado soo qaata in uusan dawlad iyo bulsho toona culays ku noqonay isagu oo shaqo doon uusan noqonay isagu uu noqdo shaqo abuura waxaana maqnaanti ka ah iyaga oo maanta qalin jabintooda u joogno inay lambar badan oo ka mid ah ardadaasi ay yihiin dad shaqeeya oo bulshadooda wax ku soo kordhiya xafiisyo kala duwan iyo meelo kala duwan iyo goobo kala duwan ka kala tirsan waxa caawa halkan ka qalin jabinaya ka mid ah kulliyadda caafimaadka qaybta umulisooyinka 27 arday nursingka waxa ka qalin jabinaya 20 arday nutrition waxa ka qalin jabinaya 53 arday public health waxa ka qalin jabinaya caawa 17 arday medical laboratory ama shaybaarka waxa ka qalin jabinaya 34 arday dhammaan ardaydaas oo ka kala tirsan kulliyad ka wada tirsan kulliyadda caafimaadka 24% ka mid ah maanta waa shaqaale iyagoo ay qalin jabintooda u fadhiyaan kulliyadda ganacsiga casriga ah waxa ka qalin jabinaya department-ga accounting-ka 51 arday human resource management waxa ka qalin jabinaya 23 arday ardaydaas 28% ka mid ah waa shaqaale maanta way shaqeeyaan kulliyadda culumta bulshada qaybta xiriirka caalamiga waxa ka qalin jabinaya 8 arday qaybta maamulka dawliga ah public administration waxa ka qalin jabinaya 28 arday qaybta diplomada monitoring and evaluation waxa ka qalin jabinaya 16 arday 31% ka mid ah ardaydaas maanta way shaqeynayaan alxamdulillah
كلية Science and Technology Department of Computer Science waxaa ka qalin jabinaya 27 arday 44 ka mid ah way shaqeeyaan kulliyada shareecada waxaa ka qalin jabinaya 44 arday 47% ka mid ah iyagoo maanta qalin jabinaya way shaqeynayaan kulliyada tarbiyada qaybta diblomada teaching and methodology waxaa ka qalin jabinaya 27 arday iyagana 44% way shaqeeyaan tirada guud oo ardada qalin jabinaysa caawa oo dhan 375 arday 215 ka mid ah waa gabdho 160 ka midana waa wiilal taasoo muujinaysa horumar weyn oo runtii gabdhaha Soomaaliyeed inay waxbarashada u soo jeesteen wax weyn ay ka qabteen inagoo maqraanti ka ah intii burbur ku dhacay gabdhuhu heerka ay ka joogeen iyo waxtarka meesha ay u ahaayeen dhanka aqoonta ay weelashu kaga badnaan jireen muddada waxa soo badanaysa inay gabdhuhu kaga badanayaan gabar wax la baray oo qaran wax la baray waxaan malaynayaa inay qaado saaxiib marka waxaan rajaynayaa jaamacadda Boosaaso oo bulshada u adeegaysay hadda qoysaska ugu tirada badnaana oo u adeegtay gabdhihii iyo asaaskii marka waxaan rajaynaynaa in insha Allah wax badan iska bedeli doonaan bulshada runtii waxaan caawa ku faraxsanahay in aan xafladda tan u qabanayno tirada ardayda inta leeg juhdi iyo dadaal dheer soo bixiyay waxaan kale ku faraxsanahay jaamacadda Boosaaso oo mar walba u taagan oo adeegida bulshada runtii in ay maanta xafladda tan qayb ka mid ah ay fadhiyaan marti ku yihiin oo ka soo qayb galayaal ka yihiin markii ugu horeysay deegaanada Puntland arday iyo Soomaaliya guud ahaan ba arday ajaanib ah oo jaamacadda wax ku dhamaysanaya waxaan marti gelinay arday wax ka baran jiray waddanka Suudaan markii dhibaatadu ka dhacayna aanu siinay fursad ah inay halkan yimaadaan waxbarashadooda ku dhamaystirtaan qaybo ka badan oo kamid ah wayna la joogaan oo rajaynaynaa kuwa kale inay yimaadaan waxaan rajaynaynaa bulshada guud ahaan inay soo dhaweeyaan in dadka walaalahan horta inoo yimi waa marka koowaad marka kala sharaf weyn waxaa noo ah runtii in maanta inaga waxbarasho la inoo soo doonanayo waxaan rajaynayaa in dadaalka waxa lagu imaanaya waa nabadda horumarka aanu gaaray marka waxaan rajaynaynaa inaynu isagana adkaysano soona dhaweeyna bulshada inoo imaanayso doonaya inay wax ku bartaan dhammaan waxaan runtii si sharaf leh uga mahadcelinaynaa dawladda Puntland waqti fursad fiican siisay dadkaasi una ogolaatay inay yimaadaan dawladda kala duwan bay ka yimaadeen magaaladeena inay la joogaan kuwa kale inay yimaadaan waan rajaynaynaa jaamacadaha kala duwan iyo jaamacadda tan iyo jaamacadaha kala duwanna ay ku soo biiraan anaguna inaan hormuud u noqono waan ku faraxsanahay runtii ugu dambeyn waxaan ku soo gabagabeynayaa hadalkayga waan idin hambalyeynaa caawa idinka iska leh waxaan idin rajaynaynaa inaad noqotaan nin tusaale wanaagsan waxaan rajaynaynaa inaad bulshada ugu adeegtaan hufnaan daacadnimo iyo sinaan waxaan rajaynaynaa wax kasta oo hore loo tirsaday idinku inaad noqotaan inaad bedeshaan aad iyo aad baa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh